بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوضي دوني دمال بودي إيجا مقليسو إيجا داود دونتو بيهدو إدمو كسو دوو برنامج كدبقالك وراركا أو قيبكا تيرا برنامج أو كفالو دا قود أحان حالة كجرى جيجا صوماليا برنامج كدبقالك وراركا وامد قطادير أو كترجمة حقيقة كجرى جيجا صوماليا وبرنامج كفالونا يا حالة كجرة صوماليا وبرنامج لوغا فالوضا مرحلته قدام بي او كسليسان وحكا دبولا برشادة صوماليا هذه قرابة برنامج كدبقال كوراركا وحد كداوتان حكا دبولا ومدى صوماليا قضباد حيساه بدن برنامج كما قلت دونتان داوضا يالو حقيب كنغوريا farmaajo iyo maxamed mursalo gaaray go'aan ka nixiyay shacabka Soomaaliyeed waxay go'aamiyeen arrin lid ku ah dawladda dhexe waxayna go'aamiyeen mid lagu xagardaamaynayo qarannimadii dalka dawladnimadana dhaawacaysa go'aanka maxamed mursalo iyo farmaajo oo caawa dad badan ka qosli doona isla markaana qayb ka ah waxyaabaha yaab kale ee dawladda dhexe waqtigan ay ku xisaabtamayso wararkii ugu dambeeyay ee go'aanka farmaajo iyo maxamed mursal ayaanu qaabadhigi doonaa intuu barnaamijka socdo waxaan idin hayaa waa iswaafaqi laadahay daawade ma haysaa dawo lagu daweeyo cudurka aan imika soo wado la yaabka iyo amagaaga wuxuu yahay muqdisho kaliya ayaa canshuurta dalka laga qaadaa laba maamul goboleed looma ogolo dekad iyo airport murtida ku jirta yaa fahmi karaya aan ku jilciyo warkee maxaa cashuurta gobolka Banaadir kaliya ku ekeeyay maxaa keenay in ay bilaa dekad noqdaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle maxaa bilaa airport ka dhigay Galmudug iyo Hirshabeelle xildhibaanka matala Galmudug ama Hirshabeelle maxay tahay damaca uu ka damacsan yahay dadka uu matalo wararkii ugu dambeeyay ayaanu iftiimi doonaa sababta dekad iyo airport loogu diidan yahay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug barnaamijku intuu soconayo waqti wacan ayaan ku rajeenayaa daawaday waxaan hubaa inaad ka heli doonto macluumaadyo kala duwan warbixinada aan caawa barnaamijka ku eegi doono waxaad goor dhow la socon doontaan daawadayaal oo barnaamijkeenu ku iftiimi doonaa maxamed mursal iyo gudoomiyaha baarlamaanka weeyaane iyo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan ah gaaray go'aankaasi oo ka nixiyay shacabka Soomaaliyeed marxaladaha laga wada hadlay iyo arrinta waxay noqotay mid dadka intooda badani ay amakaag iyo la yaab ay ku noqotay kadib markii labadan mas'uul go'aanka ay qaateen ay dhaawici karto dawladnimada Soomaaliya maxaa la go'aamiyay ma ka filaysay maxamed mursal iyo farmaajo inay sidaan oo kale ay sameynayaan ma islahayd maalin waxaad arki doontaa ama aad daawo doontaa maxamed mursal iyo waliba maxamed cabdilaahi farmaajo oo u heshiiyay jiritaankii Soomaalinimo una heshiiyay jiritaankii iyo waliba la socoshadii dawladnimadii la wada sugayay caawa ayaan heshiiskaasi ku hayaa hadduu alla idmo balse waxaan ku hormarayaa siyaasadda dalka iyo xaaladda koonfurta Soomaaliya daawadayaal waxaan caawa dul istaagay anigu waan yaabay cudurkan dawo u keena anigu waan yaabay cudurkan dawo u keena canshuurtu waxay ku egtahay gobolka Banaadir dekad looma ogolo Hirshabeelle airport looma ogolo Hirshabeelle sidoo kale dekad looma ogolo Galmudug looma ogolo wax airport ah waxaan rabaa markii inaan dadka ka raali geliyo oo ka baahi tiro oo ummadda Soomaaliyeed aan u sharaxo sirta ku jirta airport loo diidan yahay Galmudug airport loo diidan yahay ama garoonka diyaaradaha loo diidan yahay Hirshabeelle iyo canshuurta ku ee gobolka Banaadir waxaan rabaa markii inaad ogaataan marka koowaad in maamul uu garoon samaysto dawladdu wax ma ka qaban kartaa dawladda lid ma ku noqon kartaa ha maamulkan Hirshabeelle labada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay ka soo kala jeedaan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waad ogtihiin Cali Guudlaawe nin la yiraahdo ayaa matala Shabeellada Dhexe Cali Guudlaawe ma awoodo inuu ka sameeyo airport magaalada Jowhar xarunta maamulka Hirshabeelle maxaa yeelay waa magaalo dawladda dhexe ay amarka lagu maamulayo Hirshabeelle dawladda dhexe ayaa haysa dawladuna wallahi inaana been idin sheegayn waana idin ballan qaadayaa in 2 sano oo soo socota farmaajo wuxuu dhamaysan doonaa iyo qayre maamulka Hirshabeelle oo aan loo ogolayn airport waayo waxa si cad oo aan gambasho lahayn loo diiday in la xaqabtiro garoonka Jowhar waayo dadka Jowhar degan ee ku abtirsaday Hirshabeelle xaq uma laha dastuurka qayb kamida wuxuu ilaahay ku manaystay waxa la yiri hadii dekad loo yeelo Hirshabeelle waxaan rabaa sirta inaad ogaataan waan hubaataa in Hirshabeelle weligeed ayna dekad yeelanayn labada sano ee hadda bilowga ah ilaa uu madaxweyne ka yahay farmaajo ma yeelanayso Hirshabeelle airport iyo dekad waa mid aan anigu ka hubo maxaa yeelay sababta loogu diidayo waxay tahay oo loo sheegay waare waa loo cadeeyay waxa la yiri maamulkaagu bilaa dekad iyo bilaa airport ayuu ku shaqayn doonaa
cali guudlaawe waa loo sheegay waxa la yiri bilaa airport bilaa dekad ayaad ku shaqay doontaa waxay ku qanceen madaxdii Hirshabelle in bilaa airport ay ahaadaan waxay ku qanceen in wax garoon diyaaradeed la yiraahdo Hirshabelle laga mamnuuco waxay ku qanceen wax la yiraahdo dekad in laga mamnuuco maamulka Hirshabelle sababta loo diidayo marka maxay tahay nacaybka dawladda dhexe uu hogaamiye Farmaajo ay u qabaan shacabka masaakiinta ah ee ku nool Hirshabelle hadday ahaan lahayd shabeellada dhexe iyo weliba Hiiraan waxaad ogtihiin sababta loogu diidayo ayaga la'aantood dad ayaanan maalin qura heli karin wax irsaaqad ah dawladdu waxay ku nooshahay waa ganacsadaha u dhashay shabeellada dhexe iyo ganacsadaha u dhashay Hiiraan ganacsadaha shabeellada dhexe u dhashay waa ninka dekada Muqdisho kala dega raashinka oo la labu jibaaro cashuurta laga qaadayo ganacsadaha u dhashay shabeellada dhexe lacagta laga cuno ayay dawladda dhexe biilataa haddii qof adiga aad iska dhuuqaysay oo dan iyo xeello mustaqbalkiisa aadan ka lahayn hadduu beritu tabar yeesho waa dhibaato inteeda la-eg looma ogolo Hirshabelle waana mid hadda caawaan idin caddaynayo ogaada ma arki doontaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre intay talada dalka hayaan Hirshabelle looma ogolo inay yeelato wax dekada fiiri dulmiga bili aadanka lagu wado oo dadku inay ogaadaan u baahan weeyaan anigu waxaan ahay u doode qofka dhiban waxaan ahay u doode dhibanaha nool ee aanan ogeyn adduunka in laga ogeyn daawade shabeellada dhexe dembigayga shabaxay tahay waxaa ku nool ganacsade abgaal oo dekada Muqdisho bil looga qaato hadduu ganacsadaha abgaal uu yeesho damiir iyo waxtar isla markaana uu gaaro dantiisa inuu ogaado walaalayaal dawladda laf dhabartii ka jabtay dawladdu waxay ku xiran tahay ganacsadaha abgaal inuu ahaado qof iska nool oo aan dantiisa ogeyn dekada Ceelmacaan haddii loo furo shabeellada dhexe irsaaqadii dawladda dhexe meeshaas ku baaba'aysaa lama ogolo haddii airport ama garoon ay shabeellada dhexe yeelato iyo weliba guud ahaanba Hiiraan diyaaradda shakhsiga u dhashay shabeellada dhexe ama ka soo jeeda beelaha xawaalla iyo abgaan kama degayo garoonkoodu magaalada Muqdisho walaalayaal waxaan idin hayaa maamul la leeyahay dekad samaysta iyo maamul la leeyahay kuma quurno dekad Soomaaliyana waa loo simeeyahay shakada meesha iska qabalada eeg Soomaaliya waa loo simeeyahay Hirshabellena waxa la yiri waa ka xaraan in aad yeelato maamul in aad yeelato garoon diyaaradeed waa la diiday wax la yiraahdo in ay yeelato dekad sababta loo diidayna wax kala ma aha Muqdishona waa cashuur Hirshabellena bila dekad ilaa bila airport marka ma la dhihi kara dawladdu way hortaagan tahay ha waayo garoon in la dayactiro dawladda dhexe dan ugu jirto 90 kilomitir looma ogolo airport inay yeelato 90 kilomitir looma ogolo wax dekada inay yeelato maxaa yeelay haddii dekad Hirshabelle la helo ninkan u dhashay Hirshabelle markabkiisu kama degayo magaalada Muqdisho waayo Soomaaliya waqtigan ma aha mid hal dhinac kaliya ku jihaysan ganacsadaha ka soo jeeda Jubbaland markabkiisu Kismaayo ku xirtaa ganacsadaha ka soo jeeda Puntland markabkiisu Boosaaso ku xirtaa ganacsadaha ka soo jeeda Hirshabelle iyo Galmudugna wuxuu ku qasban yahay inuu Muqdisho ku xirto dadkan koonfurta degan aqliga laga haysto Muqdisho kaliya ma aha waxa laga yaabaa qofka reer Muqdisho markuu hadlaba inuu leeyahay waxa naga maqan xuquuq waxa naga maqan gobolka Banaadir meesha laga cuuriyaaminayo gobolka Banaadir kaliya ma aha dagaalka lagu wado koonfurta Soomaaliya ma aha gobolka Banaadir kaliya waayo haddii gobolka Banaadir laga rabo kaliya waxa lagu ogolaan lahaa dekad ay yeelato Galmudug iyo weliba Hirshabelle waayo ganacsade Hirshabelle u dhashay markabkiisu kama degayo gobolka Banaadir haddii Hirshabelle ay maamul yeelato dadkan fiirsida loo curiyaaminayo oo waliba la leeyahay qofkii ka hadlo waa qof dawladiid ah ama qaran dumis qof nool ayaa la yiri airport uma qalantid qofkii ka hadlana waa qaran dumis qof nool ayaa la yiri airport iyo dekad xaq uma lihid waayo dadka Hirshabelle way ka qiimo yar yihiin sidan haddaan u dhaho dad badan yaabay markaan ku dhaho dadka Hirshabelle way ka qiimo yar yihiin dad badan ila yaabaya laakiin sababtan ku sheegaya ganacsadaha Hirshabelle awood uma laha inuu yeesho dekad waayo asaga waa la dhuuqaa oo Muqdisho ayaa loo fadhiyaa haddiiba caasimadii iyo weliba maqaamkeedii aynu faraha kala baxno maxaa Hirshabelle bilaa dekad ka dhigay
maxaa galmudug bilaa dekad ka dhigin hadday daacadnimo iyo dad jacayl ay jirto ballantii January 2018 laga qaaday shacabkii galmudug aaway dekadii Hobyo dadkan xanuunsan ee aan rabo inaan xanuunkooda dawadooda ku dhibciyaa waxay tahay 2 sanad ka hor ayaa ballan laga qaaday waxaana caawa ku cadeynayaa oo ay taariikhdu ku beegan tahay 22 bisha koowaad 2 sano oo soo socota dekad iyo airport waa ka mamnuuc Hirshabeelle iyo galmudug waxaana qasaba ganacsadaha Hirshabeelle iyo ganacsadaha ka soo jeeda galmudug wuxuu qasab iyo sandullo ku tagayaa magaalada Muqdisho walina cadaalad ayaa jirta waayo cadaaladda dhabta ah waxay leedahay adigu soonkaaga iska xiro waa in qofka ka soo jeeda Hirshabeelle uunan wax dekada yeelan qofka ka soo jeeda galmudug wax airport inuunan yeelan diyaaradda Muqdisho ka kacda Garowe ayay ka degi kartaa diyaaradda Muqdisho ka kacda Kismaayo ka degi kartaa diyaaradda Muqdisho ka kacda Hargeysa ka degi kartaa laakiin diyaaradda Muqdisho ka kacda maxay uga degi weysay garoon caalami ah oo ku yaala Jowhar dadka inaad ka liidataan aan ku tusay maxaad Garowe kale u noqon weyday maxaa ku diiday muuqaalka Garowe garoonkiisa alaashan uma qalantid inaad yeelato wax degada iyo wax airport anoo aad uga xun waxaan u cadeynayaa shacabka Hirshabeelle iyo shacabka galmudug oo mar waliba ku ooma maqaamka gobolka Banaadir maqaamka maxaaba idin gaaraya idinkaaba la idin ogolayn dekad iyo airport sababtaasi murtideedu waxay noqonaysaa ganacsadahan u dhashay Hirshabeelle iyo ganacsadaha u dhashay galmudug waxaa qasab ah inuu dawladda biilo dawladda inay biilato ayaa muhiim waayo waxa la yiri hadii maamul fiiri sida la idin qiyaanaya waxa la yiri gobolka Banaadir hadii maqaam loo yeesho dawladdu maxay cunay hadday gobolka Banaadir maqaam uu yeesho dawladdu maxay cunaysaa erga sturgeon fiiriya waxa la yiri hadii gobolka Banaadir airport yeelato dawladdu maxay cunay waxa la yiri gobolka Banaadir hadii dekad yeelato dawladdu maxay cunaysaa waayahay xaqqa dawladda Soomaaliya maxaa reer gobolka Banaadir dusha u saaray haddii dagaalku uu ku socdo gobolka Banaadir oo kaliyana maxaa Hirshabeelle bilaa airport ka dhigay bilaa dekad ka dhigay labada sano ee soo socota Hirshabeelle ma yeelan doonto dekad iyo airport waana cadaaladda rasmiga ah ee laga doonayo qofka reer galmudug iyo qofka Hirshabeelle inuu ogaado uma qalanti dekad iyo airport dhinaca waa xanimaadda dawladda Soomaaliya laakiin qaladku inta kaliya ma aha dawladdu inay ka mamnuucdo dekad iyo airport yaa sabab u ah maxaa loo waayay xildhibaan Hirshabeelle ka soo jeeda ama xildhibaan ka soo jeeda galmudug oo ummadda runta u sheega oo yiraahda walaalayaal kursigiinaan matalnaa nalooma ogolo airport iyo dekad dambiga hadduusan wax ku lahayn maxaa loo waayay xildhibaan ka soo jeeda Shabeellada Dhexe hadduusan dambiga qayb ku lahayn maxaa loo waayay xildhibaan ka soo jeeda Hiiraan maxay u aamusan yihiin xildhibaanada ka soo jeeda galmudug maxaa loo waayay xildhibaan intuu soo fariisto ummadda runta u sheega haddaba Soomaaliyeed waxa la yiri dhinac iyo dhulba isle qofka bini'aadanka markuu tarjumaya eragana ma aha dhinac kaliya in loo xaqliyo xildhibaanka maanta ku hadli waayay haddaa tahay Hirshabeelle ku sheegi waayay hadduusan awood kale lahayn waa inuu adiga ku soo fariistaa hadday dawladdu telefishinada xayirtay xildhibaanku wuxuu soo fariisan karaa Facebook ma aragtay wali xildhibaan Hirshabeelle ka soo jeeda oo inta Facebook soo fariista dhahaya walaalayaal awoodii waa nalaga qaaday annaga ma awoodin inaan dekad ku sameyn haddaba dambigu xildhibaankaagana waa leeyahay ogow xildhibaanka galmudug intuu soo fariisto waa naloo diiday wax dekada iyo wax airport kuma dhahayo khiyaanada loo maleegayo dadkaasi masaakiinta ah xildhibaanaduna lugay ku leeyihiin mar kale waxaan leeyahay xildhibaanada matala Hirshabeelle iyo galmudug walaalayaal ummadda runta u sheega cadeeya dambi kasta oo meesha ka jira cadeeya warbaahintu markay ogaato in dawladda dhexe aysan raalli ka ahayn airport Jowhar ku yaala xildhibaanka Hirshabeelle matalow maxaa ku diiday adigana inaad hadasho waxaan anigu ka yaabay oo aan ummadda Soomaaliyeedna leeyahay xildhibaankii maanta ummadda ka aamusa barrito xishood darradiisa ma wuxuu dhihi doonaa Hirshabeelle matalaya heerka xishood darro bal eega dadkii ka aamusay dhibaatada loo geysanayo galmudug barrito miyuu doonayaa inuu waddankan ka noqdo xildhibaan musharaxa orodka ku jira ilaa haddana doonaya inuu xisbi hogaamiyo muxuu uga hadli waayay dhibaatada halkaas taagan war bal fiiri ceebtan war bal eega ceebtan bal ila dhuuxa wixii jira ma daawatay dhulka Shabeellada Dhexe imisa nin ayaa matasha Shabeellada Dhexe imisa nin ayaa matasha Shabeellada Dhexe waa dad waaweyn oo rabbi magac iyo munaasab u siiyay
laakiin weli waxay moodaan inay ummadda ka gadmayaan ninkii ku daawada hooyada shabeellada dhexe degan dhibaatada ayaa doonaya inuu ummad hogaamiyo ninkii ku daawaday dhibaatada iyo wadan la'aanta ka jirta dhulka shabeellada dhexe ayaa doonaya inuu ummad hogaamiyo ninkii ku daawaday galmudug dhibaatada ka jirta ayaa doonaya inuu ummad hogaamiyo wartiisa daryeela tu kaleeto ku dara ayay Soomaalidu tiraahdaye musharaxa doonaya inuu Soomaali hogaamiyo dhulkiisii bal eega aaway siyaasiga ka soo jeeda shabeellada dhexe aaway siyaasiga Hirshabeelle ka soo jeeda meeqannin oo sharaf iyo sumcad ku leh bulshada ayaa jiro gurigiisu oo aad u faaruqay alla maxay qurux badan yihiin tayga markay wataan laakiin xildhibaan hooyadii baahan tahay sharaf ma leeyahay musharax hooyadii ay bilaa isbitaal tahay sharaf ma leeyahay war bal eega dadkan doonaya inay Soomaali hogaamiyaan dhulkooda dib u eega ma waxa astaahilo inuu hadlo nin ka soo jeeda galmudug airportna looma ogolo dekadna looma ogolo musharaxana wuxuu doonayaa inuu yiraahdo dalkan hogaaminaya wartiisa daryeela tu kaleeto ku dareen war siyaasiyiinta oo xishooda war ummadiina ka xishooda war runta u sheega war haddaad bari hogaaminayso wadankan ogow gurigaaga foolxun ummad Soomaaliyeed wallahi waa kugu lalaboonaya nin gurigiisa aanan daryeeli karin ayaa ummad hogaaminaya bal eeg qof baa raba inuu xisbi hogaamiyo dhulkiisina eeg hogaamiye kasta oo xisbiyada ka soo jeeda waxaan aad uga xumahay in hogaamiye kastaba uu ka soo jeedo galmudug iyo Hirshabeelle waxaan aad uga xumahay xisbiyada dalka ka jira badankood waxay ka soo jeedaan labada maamul ee ugu liita dhulka shabeellada dhexe isbitaal ma laha ya salaam bal eeg hooyada shabeellada dhexe degan meel ay ku umusho ma laha hogaamiye weyn ayaa iska soo sharaxi doona shabeellada dhexe nin baa doonaya inuu Soomaali hogaamiyo hooyadiina waa bilaa isbitaal nin baa doonaya inuu Soomaaliya hogaamiyo wiilkiisa hadduu shuban ku dhaco meel la geeyo malaha nin baa doonaya inuu Soomaaliya hogaamiyo maanta meel uu bile wada uu leeyahay haba yaraatee malaha fiiri imise ganacsade ayaa galmudug ka soo jeeda imise siyaasi ayaa doonaya wadankeena madaxweyne ka noqdaan reer galmudug ceebta taagana arag waxaan aad uga xumahay oo idin bilaabi doona barnaamij la yiraahdo musharaxow dadkaaga dib u fiiri waxaan u doodi doonaa hooyada miskiinta ah ee magaceeda lagu qaraabanayo waxaan tusi doonaa musharax walba oo idin ballan qaadaya inaan dhulkiisa ka soo sheekeeyo nin kasta oo musharaxa dhulkiisa ayaan ka soo sheekayn doonaa waxaana ku qosli doontaan nin dhanoo weyn oo sumcad iyo sharaf leh oo dhulkiisu isbitaal lahayn doonaya inuu Soomaali hogaamiyo waxaan idin ballan qaadayaa nin magac leh oo xisbi hogaaminaya oo gurigiisa iyo wadada gasha xaafadiisa ayayadiis ay baahan tahay habaryar baahan iyo musharax hogaaminaya ayaad baran doontaan waxaan idin ballan qaadayaa qof kasta oo ku salaysan arinta inaan dul istaagi doono waxaan rajaynayaa in badan oo kamida shacabku inay ka heli doonaan warbixinada musharaxa isa sharaxayo dhulkiisii ka waran waxaan aad uga xumahay in xisbiyada ay hogaaminayaan rag ka soo jeeda labada maamul ceebta fiir Soomaaliya ceebta eega waxa xisbi hogaaminaya nin galmudug ka soo jeeda waxa xisbi hogaaminaya nin Hirshabeelle ka soo jeeda ceebta fiir war nin shabeellada dhexe ka soo jeeda dhulkiisu isbitaal lahayn meel laga quudiyo dadkoodu ay aad u liitaan maxaa keenay maanta inuu musharaxno maxaa keenaya nin galmudug dhibaatada ka taagan intuu indhaha ka dabooshay kule musharax baan ahay bal eeg dadkan aanan xishoonayn ummadooda been u sheegaya ayaan u ballan qaadayaa musharax walba oo xisbiyada kamida waxaa bilaaban doona bilo aan idiin soo bandhigi doono war ninkan madaxweynaha doonayo dhulkiisii eega waxaan ku tusi doonaa oo ceeb ah dad sharaf leh oo magac leh oo bulshada Soomaaliyeed ay jecel yihiin oo wallaahi dhulkooda aanan lahayn ceel biyo laga cabo madaxweyne la jecel yahay dhulkiisana ceel ma laha madaxweyne la jecel yahay dhulkiisu isbitaal ma laha madaxweyne la jecel yahay dhulkiisa abaaro ayaa ka jira bal eeg waxaan tusi doonaa dadka war ninkan inuu xishoodo miyuu astaahilaa mase inuu la doorto nin aanan dhulkiisaba wada jid cadda u ogolayn fiiri musharaxiinta soo socda wallaahi waxaa ku jira baqiil dhaafay oo aanan ummadiisa waxba u ogolayn yuu been u sheegaya marka musharax jid cadde ka samee waayo tuuladiisa yuu been u sheegaya musharax jid cadde waxa la yiraahdaa laami maaha waa wax yar wada yar oo baala la geliyay nin aanan dhulkiisa ka samayn ayaa maalin walba ummadda been u sheegaya nin hooyadii ay bilaa koronto tahay ayaa ummadda been u sheegaya
nin tuulada oo ku dhashay ayaa been u sheegaya ummadda fiiri biyo la'aana ka jirta qayb ka mida eeg qayb ka mida xasuuqa ka jira shacabkiibaa macawisley la baxay ayay dagaalamayaan musharax awoodo oo tegi karaan ma laha dhaqaale uma ogolo dadkooda dib uma dhisayaan hogaamiye waxaan ummadda u ballan qaadaya barnaamijyadeeda waxaan iftiimi doonaa nin dhulkiisu bilaa isbitaal yahay nin dhulkiisu bilaa waxbarasho yahay nin dhulkiisu wallaahi inuusan gaari tegi karin gaari kuma tegi kartid waana musharax madaxweyne wuxuu leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa inaan horumar gaarsiin doono war gurigaagaba laami ma tago war ummadda been ha u sheegin isbitaal ma laha hooyada ummadda been ha u sheegin war dadkaagii waa qax ummadda been ha u sheegin nin ummaddiisu ay dhibban tahay soomaaliya ma hogaami karo waxaan rabaa inaan u doodo musharaxiinta magacooda saddexan iyo dhulkay ka soo jeedaan anigu musharax shaqo kuma lihi igama gadmayo musharax siyaasi ah waxa iga gadmaya hooyada dhibban waxa laakiin ceeb ah musharaxiinta aan soo wado wallaahi oo bilaahi dhulkooda qaarkood biyo la'aana ka jirta hooyo biyo arooraysa ayuu rabaa soomaali inuu hogaamiyo war dadkaaga wax u tar ummadaada wax u tar dadkaaga wax u qabo gobolka banaadir gudoomiye kastoo gobolka banaadir la magacaabo waa abgaal waa qasab maxaa yeelay gobolka banaadir waa gobol taariikhiyan cid xaqiri kartana aysan jirin waxaa iskale abgaal ismaan laakiin abgaal ismaan gudoomiyaha gobolka banaadir wuu noqdaaye muxuu dhulka uu abgaal ka degan yahay muqdisho maxay ugu liitaan deegaanada kale gobolka banaadir tusaale waxaa gudoomiye noqda nin ka soo jeeda abgaal kaaraan waa mugdi dhalashadiisu waa abgaal cabdicasiis waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna waa abgaal degmada shagaani waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna waa abgaal shibis waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna waa abgaal sanca waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna waa abgaal cc waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna waa abgaal fagaxna waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna waa abgaal fiiri layrarka muqdisho waa laga mamnuucay waqooyiga soomaaliya waqooyiga muqdisho fiiri layr walba oo muqdisho laga sameeyo dib u dhis kastoo caasimadda laga sameeyo waa ka mamnuuc dhulkan abgaal ay ka degaan caasimadda dalka gudoomiyaha gobolka banaadirna abgaal waayahay ma dadkaa qaldan mase gudoomiyaha qaldan war dadka u dhashay abgaalow oo degan waqooyiga muqdisho ogaada koonfurtu waa dhisan tahay dhulkiinuna waa mugdi gudoomiyaha gobolka banaadirna idinkaa iskale layrarka habeenkii lagu dhajiyo wadooyinka muqdisho waxay ku egyihiin hotel tawfiiq dhanka kale wadada wadnahana waxay ku egyihiin isgoyska xariir yaale siinay layr kama jiro afar jardiino layr kama jiro sanco layr kama jiro jiiradan la yiraahdo jiirada degmada kaaraan oo jiro wacbunanaad u taqaanaan koronto kama jirto layrarka waa laga mamnuucay beexaane kama jirto wax layra ilaa iyo dalcadii raadiyihii banaadir ilaa hotel global ma dhismo layrna ma laha abgaal dhulka uu ka dega muqdisho bilaa layr maxaa ka dhigay horumarka caasimadda dalka maxaa dhulka abgaal u diiday maxaa keenay gudoomiye for example oo ummadda fiir gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu dhisaa dhul uunan abgaal shaqo ku lahayn ajaa'ibka fiiri ninkan u dhashay abgaal ay gudoomiyaha la yiraahdo wuxuu dhisayaa tusaale ku siinaya hana u malaynin inaan qabiil ka wado waa tusaale leh nin degmada cabdicasiis waqti isaga luminayo abgaal ma arkaysid nin degmada kaaraan waqti isaga luminayo abgaal ma arkaysid nin isgoyska sanco waqti isaga luminayo ma arkaysid nin ilaa iyo jidqalooc ilaa iyo afar jabdin waqti isaga luminayo ma arkaysid gudoomiye abgaal oo waxaad arkaysaa wuxuu dhisayaa KBB xafladda duuraba KBB uu aadaya wuu ka xishoonaya wuu iskala weyn yahay inuu dhul abgaal dhiso wadada ay abgaal isticmaalaan inuu dhiso wallahi waa iskala weyn yahay nin kastana waa nooc wallahi inuusan jirin gudoomiye kan kala dhaaf dhulkan marka dadka loo magacaabayo ogaada ummadda idinka ugu liita ogaada gudoomiye gobol waxba horta iskuma dhaamaan haddii nin kale loo magacaabo oo nin aan u dhalan abgaal haddii la siiyo gudoomiyaha gobolka banaadir wallahi si isku mid ah maxaa yeelay dhulkan waa dhulku ka soo jeedana ma daneeyo intaa keliya ma aha laba arrin ayaan rabaa markii inaan iftiimiyo dhinaca gobolka banaadir waan idiin sheegay horumarka caasimadda dhulka abgaal waa laga ilaaliyay ceebta kale fiiri hoteelada ku yaala dhulkan ay abgaal muqdisho ka degan yihiin shaah laguma cabo shaah maxaa ka mid ah hotel ramadaan laba gabdhood iskuma salaanto hotel ramadaan qof inta fariista shaah ku cabaya ma jiro maxaa yeelay abgaal dhulkiisu ku yaala fiiriya deegaanada abgaal xitaa looma ogolo horumarka hotelada yaa ii sheegi kara laba nin oo fariisata hotel guuleed
ma jirto laba nin oo fariisato hotel Ramadaan ma jirto laba nin oo fariisato hotelka Panorama ma jiro laba nin oo waqti isaga lumiso hotelka Banaadir fariisto ma jiro laba nin oo waqti isaga lumiya oo hotelka Global fariisto ma jiro waayahay dadkan dhulkoodiina waa la burburiyay caasimadana iyaga iskale gudoomiyaha gobolka waa iyaga hoteeladoodana shaah lagu macabo yaa sababa ma taqaana gudoomiyaha gobolka Banaadir markaad ballamiso hotel ambassador kula aadaya ilaa iyo hotelada ku yaala koonfurta ku leeyahay ugu imaw gudoomiyaha gobolka uu iskala weyn yahay hotel Ramadaan inuu fariisto xildhibaanka u dhashay Abgaal uu iskala weyn yahay Panorama inuu kugu ballamiyo fiiri xildhibaanka u dhashay Abgaal uu iskala weyn yahay hotelka Banaadir inuu ku yiraahdo igu imaw xildhibaanka Abgaal u dhashay hotel Global waa iskala weyn yahay wuxuu ku leeyahay seen ku fariisanaya ma anoo xildhibaan hebel ah ayaan hotel Global fariisanaya maxaa yeelay irsaaqada ilaahay dadkana waa laga mamnuucay dhaqaalaha wadanka waa loo diiday gobolka annaga iskale ay taagan yihiin dhulkooduna waa mugdi annaga gobolka iskale degmadooduna waa mugdi fiiri annaga gobolka iskale dhulka jaja ilaahan ku dhaartaan ku dhaarkaan markaad aado baabuurkaaga waa bada isbarbartigiisu degdeg asagoo dhan dhuujisu u baahan yahay dhulkaas markaad aado waa qasab marka aad ka dhaqaaqdo isgoyskan xariir yaale Siinaaya ku xigo wadada wadnaha waa sii soconaysaa Afarjardino waa sii soconaysaa Sanco waa sii soconaysaa Jiro Wacbudan dhulkiinu eega war dib isku fiiriya dhulkiina fiiriya gudoomiye gobolna waa leeyahay filaysaa taasana baqiyata ku ahaynin haddana hoteeladii niiba ka daran shaah lagu macabo gudoomiyaha gobolka idinka waa sax gobolka Banaadir Abgaal iskale ma xaqiray laakiin dhulka Abgaal inuu ugu liito gobolka Banaadir waxay ceeb u tahay xildhibaanada waxay ceeb u tahay gudoomiyaha gobolka war yaa laydi sabine war gudoomiyaha idinka waaye dhulkiinina waa eber fiir waxas gudoomiyuhu idinka waaye hoteeladiina shaah lagu macabo fiiri wallahi biyacad inta fariisata macaabist intee joogtaa dhulka Abgaal biyo laga macabo hoteelada Abgaal ma fariisanayst haddaan damcado inaan Muqdisho aado waxa leeyahay Ramadaan ha tagin ha isku tagin ilaahay hadda taqaanahay walay diidan waxa leeyahay انت دغنت Panorama ku ma Panorama a'uudu billahi min shaytaan waxa tagtaa meeshaas aad war dhulkan iyo hoteelada maxaa loo dilay intaas gobolka waxaan idin balan qaadayaa kama caajisi doono gobolka dadka iska lahow dhulkiina kama caajisay ana habeen walba idin sheegaya eeda aan maanta ma dhahay waxaan hubino umada uma sheego farmaajo diidan hoteeladaas in la aadaano kuma dhahay waxa diidan waa adiga farmaajo ma dhihin Ramadaan ha isku aadina ma dhihin farmaajo ma dhihin hotel Panorama yaa la fariisan ma dhihin farmaajo ma dhihin hotelka Banaadir yaa la fariisan farmaajo ma dhihin hotelkii Global yaa la fariisan laakiin gobolkana idinka iskale hoteeladiina shaah lagu macabo Abgaalow iga qabsada dhulka gobolka idinka iskale dhulkiinu layrar ma laha Abgaalow iga qabsada gobolka idinka iskale dhulkiinuna habeenkii marka la gaaro bajaajyadu wallahi way ka istaagayaan deegaanadaas fiiri war dhulkaano is eega war gobolka idin kuma haysatee yaa la idinku boojeenin gudoomiyaha gobolka idinka waa yaa la idinku boojeen ceebta Abgaal haysata eeg gudoomiye u dhashay Abgaal oo degmada Cabdicasiis loo magacaabay waa laga diiday waxa leeyahay degmada Cabdicasiis hadii nin Abgaal loo magacaabo wuu hadlayaa wuxuu leeyahay nin Abgaal oo la jilcin hadii loo magacaabo degmada Cabdicasiis wuxuu leeyahay degmadu waa burbursan tahay intaas lagu diiday markaas la yiri nin Abgaal ma loo magacaabi karo kuwa kale sankay ka duran سأبدأ دقمة ياقشيد أنت بدن بقولك أبقالي كتمت تاعي دقمة ياقشيد بقول كبا بقول ودقان كأبقال يا لو ديبي متقانا والله قدوميا دقاقة كرنا لو ديبي ياقشيد وعلى لو ديبي قدوميا دقمة والله ما جعلنا وحكا الشيء لكن قدوميا دقمة أو إلهي هم كل أرتب بجاج حتى من رايك قدوميا ميزان وين أو ميزان لابد جير هدو دولك حاطة والله قدوميا سيدي كيسا وحد ليسا سيدو ديدك يقول دفقا ويابسا والله صوح ولا ليري هرمارك يقصد الديدين وردت كان عقلي جوابه ماشي وجاري أنا وجارن معيه قرروا واحد الله صعد وانتنداو ضيال فرماجو يا محمد مرسل أيكوه الشيء جوان ومدة الصوماليات كان حسي أو دولة مدينة دعوة عيسى هذا الكسوة ميزان علوسي هاي دولة مدينة دعوة عيسى وجوان أيكوه الشيء محمد مرسل إيو محمد عبد الله فرماجو هذا كوه شيء وليبا مركان عاو كوه شيء waxaan ballan ka qaadayaa go'aankaas inuu socon doono 2 sano fiiri kalsoonida isku qaba eeg hadalan caaw ku sheega 2 sano hadalkaas ugu soo noqonay waa huba hadalkaasi 2 sano ma igu soo noqonay maxay yeelay
waan iska miisaamay markii hore dhinaca kale guulo waaweyn ayaa waxaa gaaraya madaxweynihii maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ninka Axmed Madoobe la yiraahdo aniga horta social media aan ka hadlaa dhinaca internetka television iyo radio midna kama hadlo sida darteed maadaama aan dadkayga kala hadlo dhinaca internetka Facebook iyo YouTube-ka daawadayaal waxaan isticmaalaa lahjado kala duwan reer baadinimo igama aha aqoon darro igama aha sababta aan lahjad walba u isticmaalo ma taqaanaa aabba geeley ah oo baadiyo jooga i daawadaan hooyo miskiin oo caana soo safrisay ayaa i daawatay marka haddaan luuqadii gobolada dhexe aan ku akhriyo intaan soo fariistay iraado qodobada wararka ugu doorka roon waxaa ka mid ah xaaladdu oo inta hooyadii ma fahmi karto sida darteed lahjadaha ayaan isticmaalo ha u qaadanina dib ninkii Axmed Madoobe ahaa marka wuxuu kalsooni ka helay inta badan qabaa'iladii Jubbaland qabaa'iladan qaybahooda kala duwan idin magacaabi maayo laakiin badankooda waxa laga dhaadhiciyay ogaadeen gumaysi ayuu ku wadaa Jubbaland Axmed Madoobe wuxuu la fariistay oday dhaqameed kasta oo beelaha Jubbaland degan dhamaantood mid buu u sheegay wuxuu yiri waa la yiri waan arkayaa ka qaalisanay yaa iga taban kara wax eeda waxaa loo sheegay isbedelkan jubbooyinka ka socda iyo geesinimo madaxweyne istaaga in Jubbaland aan lagu arkaynin waxaa ogolaaday inta badan qabaa'iladii deganaa Jubbaland waxayna go'aansadeen in ay la shaqeeyaan Axmed Madoobe go'aanka Axmed Madoobe ee ku aadan arintana wuxuu sidoo kale dhabarta ka jibinayaa rajadii dawladda dhexe ee kala hayd guuldarrada Axmed Madoobe Axmed qabaa'iladii meel u saaray dhanka kale waxa dhacday weeraro argagixisadu ay la beegsadeen Ethiopian iyo Axmed Madoobe ayaa jiray Ethiopianku wada ogeedeen way ku jajabeen wayna ku baaba'een konton iyo dhowr qof ayaa uga dhimatay ciidanka Ethiopia Axmed Madoobe waxa u soo gurmaday ciidamada cirka ee Mareykanka ciidamada Ethiopia markii la xasuuqayay Mareykanku waa daawanayay markii la xasuuqayay Axmed Madoobena Mareykanku waa adkaysan waayay eragaas ila socod markii Ethiopianka la xasuuqayay konton iyo toddoba qof laga dilay Mareykanku uma soo gurman Axmed Madoobe la gaaday shabaabku way gaadeen xero dhan laga gubay ninkii odaga ah markii dharbaxsha ay shabaabku ku dhufteen waxa dhaqsi u soo gurmaday Mareykanka waayahay siyaasadda ciidanka cirka ma farmaajo mase Axmed Madoobe horta mid ogaada yaana la idinka iibin aawa wixii ka dambeeya hadalkayga dhageyso ciidamada cirka ee Mareykanka iyo kuwa Afrika qaybta Kenya waxay la waa labada diyaaradood ee loo ogol yahay Soomaaliya waa ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kenya cid kale jubbooyinka diyaarad kuma kici karto Ethiopianka arkaysaan wax diyaarada oo ay leeyihiin kuma fuli karaan deegaanadan Jubbaland oo madaxweyne ka yahay Axmed Madoobe waxa dhacday marka ciidamada cirka ee Kenya Axmed Madoobe caawinayaan ciidamada cirka Mareykankana